of the court maxkamadda ayaan ka hadli doonaa dacwad maxkamadda qof laga soo dacweeyaan ka hadli doonaa what are you suffering from maxaad ka cabanaysaa what are you suffering from maxaad ka cabanaysaa baa la weydiiyey ragta marka I'm suffering from waxaan ka cabanayaa my husband ninkayga baan ka cabanayaa my husband ninkaygu baan ka cabanayaa beeti markaas wuxuu leeyahay did he torture you ma ku jirdilayse torture waa dirdirid did he torture you ma ku jirdilay isagu or hurt ama wuu ku dhaawacay markaas waxay leedahay no maya imuusan jirdilin mana i dhaawicine but laakiin he lied to me been buu ii sheegay ani he lied to me been buu ii sheegay because maxaa yeelay he did not mention me imuusan sheegin isagu that he snores inuu quuriyo at night habeenkii inuu quuriyo imuusan sheegin markuu ishgaansanaya marka waayahay alright hagaag buu yidhi alright hagaag is there anything else wax kale mayaa jira accusing him aad ku eedeynaysid wax kaloo aad ku eedeynaysid ma jiraan marka laga soo tagay midda markaas waxay leedahay nopsier maya mudane marka isagaa ku jira wuxuu leeyahay we will review waxaan dib u fiirin doonaa your case kiiskaaga waxaan dib u fiirin doonaa next Sunday hadda soo socotaan fiirin doonaa and now hadeerna the court is closed maxkamaddu way xiran tahay buruska weyn ee meesha ku dhafto markaa